xidigaha warbaahinta, jilayaasha, dadka boqortooyada ka soo jeeda iyo qaar kale ayaa u safray magaalada Venice si ay uga qayb galaan arooska qarashka badan ku baxaya ee aasaasaaha shirkadda Amazon Jeff Bezos iyo haweeneyda telefishinka ka shaqeysa ee Lorraine Sanchez. Oprah Winfrey, Orlando Bloom, Kylie Jenner iyo Ivanka Trump waa qaar ka mid ah dadka caanka ah ee lagu arkay doomaha iyo wadooyinka ee magaalada Talyaaniga ku yaala. Munaasabadda ayaa socon doonta 3 maalmood waxaana lagu soo gabagabeynayaa xaflad weyn oo ay dhigayaan lamaanahan iyo martidooda boqolaalka ahi. Munaasabadan ayaa si cambaareyn kala kulantay dadka magaalada oo ka soo horjeeda isbeddelka cimilada iyo dalxiiska xad dhaafka ahi. 55 jirkan guursaday 61 jirad qiyaastii 200 oo qof ayaa lagu casuumay xafladooda ka dhacaysa jasiiradda yar ee San Diego. Inkastoo aan la ogeyn qarashka rasmiga ee ku baxaya arooska, haddana waxaa lagu qiyaasay inta u dhaxaysa 20 milyan ilaa 14 milyan iyo in ka badan ilaa 50 milyan haddii ay casuumaadda ay sidan u sii socoto ayaa la leeyahay. Ma ahan arooskii ugu horeeyay ee qarash sidan oo kala uu ku baxo, iyadoona inta badan dadka maalqabeennada looga bartay inay aroosyada ceenkani oo kala dhigtaan.